بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إن شاء الله waxaa soo jeedin doonaa maadada chemistry-ga fasalka 12aad ee dugsiga sare 10 ayaan idinku soo dhigi doonaa hadduu Ilaahay idmo dhammaan maadooyinka oo dhan oo scientific subjects-ka intii aan ka gaaro 10 ayaan idinku soo dhigi doonaa hadduu Ilaahay idmo insha Allah intii 10 ay socdaana qaladaad waa iska dhici karaan laakiin oo ku dadaalaya inay qaladaad aan dhicin insha Allah ila soo wadaaga taladiina oo u baahanahay waxyaabihii aan ka gaabiyay hadana waxa uu gudugaleynaa insha Allah maadada chemistry-ga fasalka afaraad ee dugsiga sare maadada chemistry-ga fasalka afaraad ee dugsiga sare ama fasalka 12aad ee dugsiga sare table of contents oo kooban yahay waa 8 cutub cutubka koowaad waxaan ku baranaynaa hydrocarbons cutubka labaad waxaan ku baranaynaa alcohols phenols iyo ethers cutubka saddexaad waxaan ku baranaynaa aldehydes ketones iyo carboxylic acids waa cutubka labaad iyo saddexaad waxaan ku baranaynaa duulaayad insha Allah functional groups kooxaha la isku yiraahdo cutubka afraad waxaan ku baranaynaa biochemistry cutubka shanaad waxaan ku baranaynaa block elements uriyaasha la isku yiraahdo cutubka lixaad waxaan ku baranaynaa chemical kinetics socod kiimikaaleedka cutubka toddobaad waxaan ku baranaynaa chemical equilibrium isla eegta kiimikaaleed cutubka sideedaad waxaan ku baranaynaa introduction to nuclear chemistry waa hordhaca chemistry bu'eedka daaw gudugalno ama aan bilaawno cutubka koowaad waa hydrocarbons wuxuu leeyahay chapter contents-ka uu kooban yahay waa introduction to hydrocarbons waa hordhaca hydrocarbons-ka classification of hydrocarbon waa kala saaritaanka hydrocarbons-ka alkenes iyo alkynes waa alkene oo ah waa hal dabarle iyo alkene iyo laba dabarle iyo alkane oo waayada iyo NES u dambaysan waa saddex dabarle iyo aromatics iyo benzene iyo chapter review questions ayuu kooban yahay chapterkan wuxuu leeyahay chapter objectives ayuu leeyahay chapterka waa hadafyada ama jeedooyinka chapterka by the end dhamaadka of the chapterkana the learner barta should be able to awoodi karaa to define and describe hydrocarbons waynu qeex karaa oona sifeen karaa hydrocarbon to classify hydrocarbons waynu kala saari karaa hydrocarbonska distinguish waynu kala sooci karaa among the structures of alkenes alkynes and aromatics waa qaab dhismeedyada waynu kala saari karaa oo hal dabarlayaasha laba dabarlayaasha iyo saddex dabarlayaasha iyo benzinka oo aromatic loo yaqaano to write the structure formula waynu qori karaa bartaha qaacida dhismeedka iyo names oo magacaabi karaa for alkenes hal dabarlayaasha alkenes laba dabarlayaasha iyo alkenes iyo saddex dabarlayaasha iyo aromatics iyo benzinka to relate the properties astaamaha la xiriira of different types noocyada kala duwan oo kala ah marka alkene iyo alkynes iyo aromatics of hydrocarbonska to their structures iyo qaab dhismeedkooda to explain inuu sharxi karaa the isomerism of hydrocarbonska to describe inuu sharxi karaa the general preparation waa diyaarinta guud ahaaneed of hydrocarbons to state inuu sheegi karaa the use system waxyaabaha loo isticmaalo of the hydrocarbons hydrocarbonska
Okay, mid down galna marka 10 koowaad waa introduction to hydrocarbons waa hordhaca hydrocarbons wuxuu leeyahay lesson objectives waa hadaf ayuu leeyahay ama ujeedooyinka 10 by the end dhamaadka of the lesson 10 the learner barta should be able waa inuu awoodi karaa to define and describe hydrocarbon waa inuu qeexi karaa una sifeyn karaa hydrocarbon to classify hydrocarbon waa inuu kala saari karaa hydrocarbons state the uses when you shake استعمال waxyaabo loo isticmaalo hydrocarbons hydrocarbonska okay hydrocarbonska waa qaxtaankii ayaa ku bilaabay hydrocarbons are compounds waa isku dhisyo that contain ka kooban carbon and hydrogen only kaliya wuxuu kooban marka hydrogen iyo carbon examples tusaalooyin methane iyo propane iyo bentane methane oo sumadeeda oo loo qoro CH4 iyo propane oo sumadeeda ay tahay C3H4 iyo bentane sumadeeda ay tahay C5 and H8 oo macnaha waxa methane wuxuu kooban yahay hal carbon iyo 4 hydrogen propane wuxuu kooban yahay 3 carbon iyo 4 hydrogen bentane wuxuu kooban yahay isagana waa 5 carbon iyo 8 hydrogen hydrocarbonska are mainly obtained from badana waxa laga helaa hydrocarbonska are mainly obtained badana waxa laga helay from natural gaska oo dabiiciga ah coal dhuxul dhagaxeedka petroleum iyo shidaalka hydrocarbonska are commonly used inta badan waxaa loo isticmaalaa as fuel shidaal ahaan ayaa loo isticmaalaa candle shumaca waxs iyo xabaqda oil saliida gasoline iyo shidaalka loo yaqaan gasoline liquid propane gaska loo yaqaano liquid propane and natural gas iyo gaska dabiiciga are all composed dhamaan waxay kooyin of hydrocarbons ay kooyin hydrocarbonska are also sidoo kale the raw materials alaabta oo dabiiciga alaabta oo ceyrinka ah in the synthesis laga sameeyo of many different consumer products waa maxsuulada oo kala duwan waa qaatayaasha include waxa kamid ah marka fabrics marooyinka soaps saabuunka dyes iyo midabyada cosmetics waxyaabo la isku qurxiyo daraagis iyo daawooyinka plastics iyo bacooyinka aan iyo raba caaga okay 10 halkan ayaan ku ekeenayaa 10 koowaad wuxuu ahaa introduction to hydrocarbons 10 muhiimadiisu waxa waaye waa inaad qeex kartaa hydrocarbonska waxaan ku soo qeynaa are compounds that contain carbon and hydrogen only waa isku dhiska kooban hydrogen iyo carbon kaliya aynu tusaaleyn waxa ka sheegi kartaa waa methane buugan wuxuu qoray 3 methane propane iyo bentane ilaa iyo waxa sheegi kartaa marka 10 hexane heptane octane iyo nane iyo decane meelaha badan ah oo laga helay hydrocarbonska waxa kamid ah natural gaska coal petroleumska sidoo kale inay sheegi kartaa isticmaalada guud ahaaneed hydrocarbonska okay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh